Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. Kindly, if you're new here, do subscribe. Walaalayaal casharadeena kusoo dhawaad dhammaan waan isoo dhaweynayaa. Usbuucii lasoo dhaafay wiilba i weydiiyey cashar inaan baro marka tii baan dhigaynaa maanta. Today we are going to learn about causative verbs. Waxaan baranaynaa causative verbs. Waxaan u gudgalnaa casharadeena. Let's go and learn causative verbs. The causative verbs are verbs that are used to indicate that one person can cause another person to do something for them. A person can cause somebody to do something for him or her by asking, paying, requesting, or forcing the other person. Faal sabab waa faal loo isticmaali karo in lagu tilmaamo inuu qof sabab u yahay qof kale inuu wax u qabto. Qofka wuxuu u sababi karaa inuu wax uu qofka kale u qabto asagoo weydiisanayo, bixinayo, codsanayo ama ku qasbayo qofkaas kale. Examples of causative verbs: have, get, make. Tusaalayaal ka mid ah causative verbka mase faal sabab waxaa waaye hayso, hel ama samee. Now let's do verbs that have causative verbs. The first verb is have. The first sentence, John had Alex clean the room. He always has me do his work. Hadda waxaan akhrinaynaa jumlooyin oo causative verbs leh. Jumlada koowaad, John had Alex clean the bedroom. John wuxuu Alex ku nadiifiyey qolka jiifka. He always has me do his work. Mar walba wuxuu igu hayaa inaan shaqadiisi qabto. Meeshaas hataa aad ka aragteen waxaa ku jiro ficil amar. Waxa caadi looma sameynayo, codsi ma aha, waa ii samee oo xoog ah. The next verb is get. John got Alex to clean the room. He always gets me to do his work. Haye, waxaan akhrinaynaa Ingiriiska. John got Alex to clean the bedroom. John wuxuu Alex ka dhigay inuu nadiifiyo qolka jiifka. He always gets me to do his work. Had iyo jeer wuxuu igu qabtaa inaan shaqadiisi u qabto. So now if you have noticed, John is kind of forcing Alex to do things for him. Hence the verb causative verb. Now the last verb is make, and make is stronger than have and get. It constitutes only of one structure as it does not take anything passive as its object. For example, this sentence, I made him wash my car. There's a sense of forcefulness there that I made him. Robert made me beat that little child. Robert didn't leave any room for discussion. He made me beat that little child. Faalkan hadda meeshaan oo make la leeyahay wuu ka xoog badiyaa labadii hore have and get. Kan waaba hadda awalkii hore malamalaa ku jirte marka qofka wax aa ku dhehayso ama aa ku xoojinayso inuu ku sameeyo. Kan laakiin waaba laazim, ficil amarka meesha waa ku laazimeeyey. Sida jumladan koowaad, I made him wash my car. Waxaan ka dhigay inuu dhaqo gaarigaygi. Xoog buu ku dhaqa gaariga. Robert made me beat that little child. Robert wuxuu iga dhigay inaan garaaco ilmahaas yar. Hadda waa fahanteen dareemayaa. Jaamac Axmed, waxaan filanayaa kuwan waay casharada ka mid ah kuwa iga codsatay. Waxaan isu imaaneynaa Tuesday inshallah. Guys, have a great weekend and let's meet on next Tuesday inshallah. Mac salama, bye.